dhambaal wanaadiga akhriska iyo qoraalka ka aasaasan magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajaale saaka ayaa si rasmi ah loo daahfuray naadiga akhriska iyo qoraalka munaasabadda naadiga akhriska iyo qoraalka lagu daahfuray oo ka qabsantay hotel Maka Mukarrama ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka magaalada Togwajaale taliyaha saldhigga booliska iyo maamulayaasha dugsiyada waxbarashada kuwa gaarka loo leeyahay kuwa dawliga dhalinyarada mufikiriinta ee aasaastay naadiga akhriska iyo qoraalka ee dhambaal iyo dhamaanba qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn ka hadlay oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay gudoomiye hore naadiga akhriska iyo qoraalka sidoo kale waxa isaguna ka hadlay gudoomiyaha cusub maamulka magaalada taliyaha saldhigga iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay kuwa dawladda iyo mas'uuliyiinta kale ka soo qayb gashay waxaana hadaladoodii kamid ahaa mudadii aan xilkaayay naadiga akhriska iyo qoraalka dhambaal waxaan loo qabsanay waxbarashada tiro badan naadigu wuxuu qabtay wuxuu ku guuleystay inuu door muhiim ah ka ciyaaro baraarujinta dhalinyarada Togwajaale iyo dhiirigelinta maadaama uu yahay naadigu akhris iyo qoraal wuxuuna dhalinyar badan oo Togwajaale ka mid ah oo halka ugu hooseeyay ay kor soo qaaday naadigu wuxuu sameeyay dhalinyar fara badan oo ka mid ah magaalada Togwajaale inuu ku dhiirigeliyo inay maxaan sare iyo hami sare yeeshaan inuu xoojiyo marka hore waxbarashada iyo dadku markaa lagu dhiirigeliyo wax bartaan oo ay tacliinta awoodda saaraan waa arrinka koobaad ee naadigu taagan yahay arrinka labaad wuxuu yahay in la dhiirigeliyo wax akhriska sababtaasuu walaalkay tilmaamayay ummaduhu waxay isku dhaafeen waa wax akhris hogaamiyaasha caalamka soo maray iyo dadka taariikhdooda in badan wada xusaaba marka dib u raacdo waxyaabo ay ku hormareen waxaa ka mid ah waa wax akhriska iyo qadabayntuu leeyahay markaa intuu wax akhriyo qof kastaba ta kale waxay tahay walaalayaal doonana inaynu ka hirgelinno magaalada inaynu helno madal lagu gorfeeyo buugaagta inoo taalle ee laynoo qoray amba Soomaali ha qorto amba Carabi ha qortee buugta la qoray ee maskaxda iyo maanka la geeyey inay cid gorfaysa aynu helno haddaanu annagu maamulkii nahay waxa weeye dhalinyartaasi maalintay hawsha aasaasisay way noo timid ka maamul ahaan waana soo dhaweynay waan dhiirigelinaynaa wax kasta inoogu baahdana waxa weeye haddaanu maamulkii Wajaale nahay waan la barbartaaganahay aanu diyaar la nahay anigu shakhsiyan waxaan iminka halkan kaga dhawaaqayaa 40 buug oo waxa weeye gudoomiyaha ururka uu iman doono barnaamijka naadiga cidda aasaasay waa intii aqoon iyo cilmi istiday taas oo ay uga faa'iideynayaan bulshadooda iyo jiilasha soo koraya waxaan halkan idinkaga deeqaya 100 kartoon ama 100 kitaab oo quraanka kariimka aniga waxaad moodaa inay xafladan aad ii sii qusayso waxaa jira naadiyo aan la aqoon oo diiwaan gashanayn oo magaalada jiro mar baad soo socoto iyadu ka 10 ciyaala ama 20 ciyaalo gudaar waxa aniga kula taliyay hatta aniga garan waayo waa modelada fadhiista iyo meel wanaagsan fadhiista ayaan ku dhahdaa haddii naadi loo helo waxaan odhanaynaa inay halkaa fadhiistaan baa muhiim ah waxa sharafna anagoo muddo soo shaqaynayay xagga waxbarashada inuu naadigan maanta la mas'uuliyiinta degmada inay dhiirigeliyaan iyo bulshadu haddii aan nahay maamulayaasha dugsiyadaasi waxaan soo dhaweynaynaa hal-abuurkan ama naadigan qoraalka iyo akhriska ee laga bilaabay magaalada Togwajaale sayna usul lahay ama naadigaba yani magaciisu yahay waa akhris iyo qoraal sidii looga hirgelin lahaa magaalada ama loo sii hana qaadi lahaa oo kor loogu sii qaadi lahaa aniga ku hadlay afka garabka haweenka naadiga akhriska iyo qoraalka ee dhammaan waxaan aad u soo dhaweynaa ka haweenaha fikirka iyo caqliga saliimka ee isku timid dhalinyaradaas togwaal wuxuu ka ahmiyada quraanku uu leeyahay akhrisku waxay tahay qofku inuu la jaan qaado oo uu fahmo qofku waxa uu yahay waxay ka dhigaysaa qof isagoo wax uu hiigsanayo وسيد محمد مدر سيد هاند هوريال TV مقالة قناعسيات كواتشالي